Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Richard Ramirez waa magac ku jira diiwaanka ragga ugu dilaacsan ee adduunka soo maray. Arxan-darnaantiisa markuu wax dilayo habeenkii waxaa loo bixiyey dilaaga mirta. Waxa uu samayn jiray allabaryo shayaadiinta u hawarwacayo inta aanu dilin dhibanaha. Shirkadda Netflix ayaa dokumentari ka samaysay qisada dilaagan. Ku soo dhowaada muuqaalka maanta. Richard Ramirez magaciisa oo buuxa waa Ricardo Liva Monier Ramirez, waxaana lagu yaqaanay naanays ah ugaarsadaha ama Ricky. Waa nin ka soo jeeda dalka Maraykanka. Waxa uu isku darsaday inuu ahaa dilaa, nin haweenka kufsada iyo tuug xariifa. Waxa uu 13 qof ku dilay gobolka California muddo 2 sano ah, una dhaxaysay 1984 iyo 1985. Waxa uu dhashay 29 Febraayo 1960 magaalada El Paso ee gobolka Texas. Waxaana uu ahaa ilmaha shanaad qoys ka soo haajiray Mexico oo kala ah aabe Mercedes iyo hooyo Julian. 12 sano marka uu jiray oo uu weli uusan qaangaarin, waxa uu sameeyey wiil ay ilma adeer yihiin oo la yiraahdo Megan oo ka mid ahaa ciidankii ku duulay Vietnam. Ayaa uga sheekayn jiray falalkii xumaa uu ka geystay dalka Vietnam, dadkii uu laayay iyo haweenkii Vietnam ka soo jeeday ee uu kufsaday, isagoona tusay sawirro laga qaaday isagoo falka ku jira. Malayso cunug yara oo aad tusisay sawirro adoo wax farxumaynaya ma wax dilaya, oo waxa uu kaydsanaa dabcan album buuxa oo ay ku sawiran yihiin haween walba oo Vietnamiyad ahayd ee uu kufsaday. Ma uusan beenaysan karin. Richard Ramirez waxa uu tusiyey in adeerkii Richard iyo in adeerkiis waxa ay ahaayeen kuwa saaxiibo ah. Waxa ay wada dhami jireen khamrada, daroogada marijuana iyo daroogooyin noocyo kala ah. Markii uu qaangaaray Richard waxaa saameeyey qalafsanaanta in adeerkiis, oo waxa uu labadiisa indhood uu ku arkay in adeerkiis oo xaaskiisa tooganaya. Muddo aan fognayn kadib waxaa isbedelay dhaqankiisii, waxaana uu bilaabay inuu soo galo caalamka dilalka. Richard waxa uu ahaa mid guryaha laga maqan yahay u dhaca. Markii dugsiga sare uu bilaabay, waxa uu wareegay magaalada Los Angeles, waxaana halkaa uu ka sii waday dhaqan xumadiisii oo ahaa inuu guryaha u dhaco iyo inuu waxdo. Waxa uu noqday Richard mid ku diran daroogooyinka. Waxa uuna la soo baxay dhaqan kale oo ah inuu shaydaanka caabudo iyo inuu neefaf u loogo shayaadiinta. Waqti badan kama soo wareegin ilaa uu gacanta booliska ku dhacay markii ugu horeysay, sanadkuna uu ahaa 1977, laguna qabtay daroogada marijuana. Kadib waxa uu guuray gobolka California. Mar labaad ayaa la xiray kiis ah gaari uu xaday. Kadib waxa uu falkiisii u bedelay dil. Sanadku markuu ahaa 1984, waxa uu ku kacay dilkiisii ugu horeeyey oo ahaa inuu xoogay midina uu ku dilay haweeney waayeel ah, carmalna ahayd, jidhayna 79 sano, magaceedana la yiraahdo Jeannie Finch. Kadib waxa uu dhacay gurigeedii. Fal kufsi ah iyo dil ahna wuu kula kacay. Weliba markii uu dilay waxa uu ku kacay inuu qoorta uu ka gooyo islaantii, waxaana falka foosha xun uu hordhac u ahaa dilal uu ku kici doono mustaqbalka. 9 bilood kadib 17 Maarso 1985, waxa uu soo weeraray gabar la yiraahdo Maria Hernandez oo 22 sano jidha gurigeeda hortiisa, balse si la yaab leh ayay kaga badbaaday oo ay kaga baxsatay. Waxa uu Ramirez ku soo riday xabad, balse xabaddii ayaa faraha guriga ku dhacday, iyadoona qaabkaas ayay ku badbaaday. Balse waxa uu nasiibka uusan u hiilin saaxiibteedii guriga la deganeed ee Dale Ogazaki oo 24 sano jir ahayd. Isla habeenkii uu gabadha saaxiibteeda u dilay, waxa uu weeraray islaan jidka maraysay oo la yiraahdo Zelian Yu oo 30 jir ahayd. Islaantaas oo ahayd mid gaarigeeda ku jidha, waxa uu ka soo saaray gaarigeedii, waxaana uu xabad ku dhuftay dhowr jeer, iyadoo dhacdooyinkan oo kale ay Mareykanka ugub ka ahaayeen. Warbaahinta ayuu qabsaday dilkaas labada haweenka iyo halka habeen la dilay, waxaana bilowday in la tilmaamo warbixino ah in dilaagu timo badan, indho balbalaaran iyo ilka kala fog uu leeyahay. 10 maalmood kadib, Richard waxa uu dilay Fent Sasara oo 64 jir ahaa iyo xaaskiisa oo ahayd 44 sano jir. Ninkani waxa uu si xun mindida ula dhacay haweeneydii, waxaana uu ku qoray xabadkeedii bidix
xarafka ta waxaana uu ku soo gebagabeeyey dilkiisii inuu haweenaydii labada indhood u ka soo saaro horteedana uu ku tuuro iyadoo dilkii uu labada lamaane uu ku dilay bil laga joogo waxa uu weeraray Ramirez mar kale lamaane Shiinays ah oo kala ah Harold Wu oo 66 jir ah kaasoo xabaddu ay madaxa kaga dhacday iyo xaaskiisa oo 63 jir ahayd oo uu xoogay balse ma uusan dilin Richard sababtan lama garanayo 1985 weeraradii Richard Ramirez aad ayay u soo bateen waana arrinta sababi doonta inuu fashilmo oo la ogaado isagoo goob kasta raad uga tegi jiray waxaa intaas sii dheeray inay jireen dad ka badbaaday Richard oo wejigiisa dadka ka dhex sooci kara tilmaamihii dadku ay bixiyeen waxaa ka mid ahaa inuu ahaa nin timo dheer leh joog dheer iyo midab caddaan casaan ah 29 May 1985 waxa uu soo weeraray Melville Kennedy haweenay 83 jir ah iyo walaasheeda Blanche Wolf oo 80 jir ah markan waxa uu isticmaalay dubbe mid walba haweenaydaas ka mid ah dubbe ayuu madaxa kaga dhuftay intaa kadib waxa uu boodooyinkooda uu ku sawiray digta wareegga ku dhex jidha ee Ibliis lagu caabudo iyo waxa kaloo uu ku sawiray calaamadaas derbiga gurigooda isagoo isticmaalay roseto maalinkii labaad waxa uu weeraray guri ay deganeed haweeney la yiraahdo Ruth Wilson oo 41 jir ah iyo wiilkeeda oo 12 sano jir ah markii Richard guriga uu soo galay cunugii yaraa waxa uu ku dhuntay khasnad balse dilaaga oo arxan darnaa awgeed waxa uu soo saaray cunugii waa uu gowracay isaga iyo hooyadiisna xarig buu ku wada dhuujiyey meeshiina waa uu ka tegey waxaa batay wararka la isla dhex marayo oo dilaagan arxanka daran ku saabsan qofka inta aanu dilin waxa uu fari jiray inuu caabudo shaydaanka booliska aad ayay ugu dadaalayeen inay soo qabtaan ninkan iyagoo wareysanayay boqolaal qof oo sheegay inay arkeen ninkan 31 Agoosto isku dayuu rabay inuu laba gaari uu ku dhaco ayuu ku fashilmay Richard isagoo jug culus ay madaxa kaga dhufteen dadka agdhowaa daqiiqada kadibna waxaa yimid booliskii kadib caddaymo iyo markhaatiyaal fara badan waxaa la hubsaday dilaaga guureeyay habeenkii inuu ninkan yahay muddadii maxkamadayntiisu ay socotay Richard Ramirez waxa uu yeeshay dad taageersan ayna u badnaayeen kuwa Ibliis caabuda isaga qudhiisa waxa uu maxkamadda ka dhex sheegay inuu shaydaan yahay isagoo muujinayay calaamado yaab leh sida inuu maxkamadda dhexdeeda uu ka dhex muujiyey calaacashiisa oo ay ku sawiran tahay xidigta shaydaanka iyo inuu labada farood kor u taagay kana uu wado geesaha shaydaanka waxa ay garsoorayaashii ay soo saareen in Richard uu galay 43 dembi 13 dembi oo dil ah 5 dembi oo isku day dil ah 11 dembi oo tacaddi ah iyo 14 dembi oo wax dhicis ah 19 November 1989 waxaa Richard lagu xukumay xukun dil ah isagoo lagu dilayo qolka sunta waxaana lagu xiray xabsiga San Quentin ee California si uu ugu qaato inta noloshiisa uga hadhay sanadku markuu ahaa 1996 waxa uu guursaday Doreen Leyinwi oo 41 jir ahayd kana mid ahayd dadka taageera balse xabsiga kama uusan soo bixin si uu wareerkiisa nolosha ula qaato waxa uu xabsiga ku jiray wax ku dhow 24 sano 7 Juun 2013 waxa uu dhintay Richard kansar ku dhacay isagoo da'diisu ahayd 53 sano. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.